komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa maanta kulan la yeeshay saddexda xisbi qaran ee UCID wadani iyo kulmiye iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada, guddida tacliinta sare, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda caafimaadka, xeer ilaalinta qaranka iyo sidoo kale hay'adda shaqaalaha dawladda. kulankan ayaa laga hadlay sidii xulista musharaxiinta doorashooyinka deegaanka iyo wakiilada loo dardargelin lahaa iyo sidoo kale sidii loo hubin lahaa in dhammaan murashaxiinta ay buuxiyeen shuruudaha uu qeexay isla markaana uu waajibiyay xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee xeer number 19/2020 ee dastuurka Somaliland. laamaha dawladda ee kala duwan ee shirkan ka qayb galay ayaa doorar kala duwan ku leh bixinta waraaqadaha codaynta, bixinta waraaqadaha caddaynta shuruudaha buuxintooda uu xeerkani ku waajibiyay murashaxiinta sida shahaadooyinka waxbarashada, cashuur bixinta, deebaajiga, dambi la'aanta, shaqo ka tagista shaqaalaha dawladda, warqadaha caafimaadka iyo wixii la mid ah. waxaana si qoto dheer la iskula qaatay sidii xisbiyada iyo hay'adaha kala duwan ee dawladdu iyo komishanka doorashooyinka qaranku u hubin lahaayeen fulinta xeer 19/2020 iyo dhaqangelinta qodobada xeerka sida shuruudaha ku xidhan murashaxiinta isku taagi doona doorashooyinka inagu soo food kale. waa Boqor Axmed Cabdi, 5 Somali TV, Hargeysa.